European dad haysato oo meeshan Mareykanka qof ku joogo waad ku day kartaa sharcigaaga taabartaasan kaga imanaya qof kale waxa uu soo yiri Xuseen Garweynow Mareykan seen ku soo gali karaa horta Mareykan hadii aad passport leedahay waad iman kartaa si dalxiis ahaan hadii aad rabto weeyaan hadii aad degeysana waa sifo gooni oo saa gabadha aan ugu sheegay waa inuu qofka soo horeeyaa hadii aad rabto in aad qaxootinimo ku soo gashana process baa la soo galaa processka soo galaysa marka qof waxaad noqonaysaa qaxooti oo de processki qaxootiga soo galay kadibna la soo qaaday oo Mareykan qaxootinimo ku soo galay saan anigu ku soo galay oo kale marka waxa leeyahay dadka qaar kood waxa leeyahay Europe waliba sharciyada kule ku haminay raxmatullaahi wa barakaat kusoo dhawo channelkayga hada channelkayga ku cusub tahay oo markii ku gooreysay soo booqatay channelkayga subscribe noo taabta like tana noo taabta videogana sii share gareeyo walaalayaal inta markaan ka yimaado dad baa su'aalo kala duwan soo weydiiyay su'aalaha kala duwan soo weydiiyaan waxa weeyaan Mareykan ma iman karaa seen ku iman karaa sharci weyn oo European ayaan haystaa ma ku day karaa waxyaalahaas qaar kood soo weydiiyaan marka su'aalaha iyo su'aalo kale inaan iga jawaabaan rabaa waqtiyada qaar kood Mareykan noloshiisu waa hard weeyaan dadka qaar kood way yaqaanaan laakiin intana aqoon waxaan leeyahay Mareykan sideeduba igu soo caymad ma waxaad ogsooneydeen Joe Biden markuu madaxtinimada qabsanayay dalka Mareykanka aad bay Soomaalidu u faraxsanayd aad bay isu gilgilayeen hadda tigaysan Mareykan processyadii niga xidhmay iyo adduunyooyinkii niga xidhmay hadda inay furfurmayaan hadda sida dadka nili soo qaaday oo Mareykan soo galaysaan baad lahaydeen laakiin Joe Biden iyo Donald Trump marka Donald Trump la yiraahdo iyo Joe Biden Mareykan noloshiisu hard bay noqotay Trump markuu haysay nolosha Mareykanku caadi bay iska ahayd way qaboobay problem ma jirin guriyuhu qaali ma yahayn maciishadu qaali ma yahayn wax kasto u baahato de noloshu iska caadi bay ahayd oo iska meel dhaxaad bay ahayd Joe Biden markuu wadanka qabsaday noloshii Mareykanku cirka isku shareertay dukaankaad gasho maciishadii qaali bay noqotay bicihii xitaa wax lagu ridanay awal bilaashka ahaa bilaash maaha lacag baa lagaga iibinaya noloshii Mareykanku qaali bay noqday waa la yaabay marka Joe Biden kulayl buu la soo galay kulayl inaba aan caadi ahayn iyo sixir barar wax la yiraahdo ayuu dalkii Mareykanka la soo galay taa markaan ka imaado dadka su'aalaha qaar kood isoo weydiinayay waxaan leeyahay horta Mareykan sidiisuba igu soo caymad ma xaqiiq markaan ka hadlayo weeyaan Mareykan noloshiisu waa hard way adag tahay laakiin goormay adag tahay waxay adag tahay qofku markuu ku cusub yahay Mareykan ee soo galo aad bay uga adag tahay waayo qofkii uu cusub yahay Mareykan waxa weeyaan qof waliba baabuur buu wataa haduu adeeg rabo adeega baabuurku ku doonaya uu soo adeeganaya aqalkiisu ku soo noqonaya markuu yimaado uu meel kale u baahdo baabuurkiisu ku baxaya laakiin qofku markuu cusub yahay baabuur ma wato wax uu watay ma jiro labadiisa lugood uu ku socdo mooyaane meeshana lama lugeeyaba qofku haduu laba talaabo lagu isiraahdo uu daalaya waxay tahay waan garan waayay wadankii markuu qofku joogay haduu maanta oo dhan saa u lugeeyo warwar tahay lama daali jirin meeshan qofku haduu laba talaabo qaadaba neef tuur iyo taahba ka soo haraya marka qofkii soo baabuur haysan oo wadankii ku cusub oo dadkii kaxayn lahaa adeeg u baahan yahay wixii uu rabay u soo iibin lahaa shaqay ku wada jiraan oo qof waliba tiisu daba caymadaya qofku markuu chance helo oo yimaado ayuu kaxaynaya qofkii wuxuu oranayaa noloshan maxaa ku soo watay nolosha adakaaya waxaan maxay ahayd ilaa shaqana ma hayo oo qof cusub oo fadhiyo guriyo cunayo cabiyo TV-ga aan iska daawanay aad bi nolosha ugu soo adkaanaysa ugu soo xirmaysa laakiin markuu shaqo bilaabo ee baabuur iibsado ayuu dhaa kala qaadaya oo la qabsanaya nolosha wuxuu oranayaa waa dahab Mareykanku marka inta ugu horeyso qofku Mareykan igu soo caymad ma aad bay adag tahay taa markaan ka imaado qofkii ugu horeeyay wuxuu soo yiri Garweynow ma ku iman karaa anigoo sharci
sitii sana haysta Maraykan intaan imaado ma ku degi karaa? Jawaabtu waxa weeyaan haa waad ku degi kartaa, laakiin muhiimadu waa inuu qof meesha kuu joogaa. waayo sharci weyn oo European aad haysataa, sharcigaaga waad ku deganaan kartaa, waad ku shaqaysan kartaa. waayo waa dawlad la aqoonsiya Europeanku, meesha doontaba Europe ka joog, laakiin sharci weyn oo European aad haysato oo meesha Maraykanka qof kuu joogo waad ku degi kartaa sharcigaaga. taabartaasaan kaga imanayaa. qof kale waxa uu soo yiri Xuseen Garweynow Maraykan seen ku soo gali karaa? horta Maraykan haddii aad baasaboor leedahay waad iman kartaa si dalxiis ahaana haddii aad rabto weeyaan. haddii aad degaysana waa sifo gooni oo saa gabadha aan kugu sheegay waa inuu qof ka soo horeeya. haddii aad rabto in aad qaxootinimo ku soo gashana process baa la soo galaa, processkaad soo galaysaa. markaa qof waxaad noqonaysaa qaxooti ah oo dee processkii qaxootiga soo galay kadibna la soo qaaday oo Maraykan qaxootinimo ku soo galay, saan anugu ku soo galay oo kale. marka waxaan leeyahay dadka qaarkood waxaan leeyahay Yurub waliba sharciyada kule ee ku haminaya inay Maraykan u soo tahriibaan xadka Mabsiki dhulkaas soo galaan raba noloshiina halaagina. dad badan oo waxaad ogeydeen waqtigii Obama iyo Donald Trump ay kala wareegayeen in dad badan la celiyay oo waxa weeyaan wadankii lagu celiyay. marka aniyahow ku degdegina dadkaasi sharciga qaarkood Yurub ku lahaayeen, maantana Turkiya Greek bay ku cadilan yihiin qaarkood san sheekooyin ku hayo. waxaan oran lahaa ku soo degdegina meesha oo isku soo halaagina sifooyin kale ama haddii aad processyo kale iyo waxyaalo kale aad samaysan kartaan samayso oo ku soo gala. taa markaan bartaa kaga yimaado dadku aad bay u jecel yihiin Maraykan, laakiin Maraykan qof waliba uu jecel yahay. laakiin waxaan jecelahay inuu maanta wadankeenu sida Maraykanka dee uu yahay ee intaa kun ee adduunka ee maanta uu soo qaatay Maraykan ka dhex shaqaysanaysa in wadankeenu inoo noqdo ka dhex shaqaysan lahayn baa ka fiicnaa lahay. waxyaalaha kale igu la yaabka badan waxaa ka mid ah waxaad ogsoontihiin wadankeenu maanta aad iyo aad ba dhulku markuu qofku qurbaha jooga dhul iibsadu leeyahay. dhulkii qaali weeyaan. guri iibso markuu shiraahdo 100,000 baa lagaaga bilaabaya. horta waan fahmi waayay arrinkaas aad iyo aad baan la yaabay. waxa jira imika kompaniyadan Maraykanka waxa ugu badan ee ka shaqeeya waa dadkan Mabsika weeyaan. wadanka Maraykanka luqadda labaad ee laga hadlaa Ingiriiska marka laga yimaado waa Spanish baa laga hadlaa. waayo wadankan Mabsikaan baa ka buuxaba. kombaniyada aad aragteen Maraykan ka wada shaqeynaya waxa ka wada madaxa ah Mabsikaan, waxa ka shaqeynaya waa Mabsikaan. dadka qaarkood ee Mabsikaanka wada shaqeynayna aan markaan wareysto waxaan ku raahdaa bal maanta Maraykan baad joogtaa, Maraykan adigoo jooga lacag wada haysataa wadankaagii maanta haddii aad aado guri intee kuu dhisaysa baan ku raahdaa. wuxuu ku raahdaa guri iska daayay $1 haddii aan maanta hodheel la galo 5 qof ayaan ku qadaysiin karaa. 5 qof ayaan ku qadaysiin karaa. guri waxa ii dhisay buu ku leeyahay 20,000 lacag ah ayaa guri inaba aan caadi ahayn oo Messi ama Cristiano Ronaldo uu degan yahay oo kala ii dhisay buu ku leeyahay. waa wadan dawlad la weeyaan. inagii oo Soomaaliya oo maanta dee caalamka meeshan ka jirna la og yahay ayaa haddana waxaan ku yiri nolosheenu ay erka tahay. war 100,000 baa lagu leeyahay guriga la dhiso ee lagu dhisaya 100,000 lagaga bilaabaya. jawooyinkii baa erka lagu geynaya. maanta 100,000 markaan guri wadankii hooyo aan siisanayo dee guryaha Maraykanka 100,000 baa la siiyaa ma guri Maraykan iska iibsado. noloshii waxay noqotay niyahow erkay noqotay. dadkii markaad biil u dirayso ama lacag u dirayso lacagtii waxba nooma goynayso waxba nooma qabanaysa lagu leeyahay. waxaasina waxa weeyaan niyahow dawladahan in haysta ee waxaan ku yiri dadkii dhiigooga sa u miiranaya ee nacamdi dadkii ay madaxda u ahaayeen ee ay u dhaarteen xilka ay u qaadeen ayaa waxaan ku yiri dhiigooga la noogeeya. bal waa kuwaas dad baan wada shaqeynaa, dadkaan wada shaqeyno niyad bay ku shaqeeyaan waxay ku leeyihiin anagu maanta lacagtan waxbay noo qabanaysaa. annagii Soomaalida hayna waynu daalaynaa oo dhabarkii meel walba na qaraacayaan. haddana maanta haddaan lacagtii adduunka haysano
waxba kuuma goynaysaa lagu leeyahay iyagana $1 baa 5 nin hudheel ay ku wada cunayaan ka war $1 weeyaan maanta Hargeysa hadaan aado ama Buurmaan intaan aado hudheel $1 5 qof ma ku cashaysiin karaa no hay 100 ama 200 ama 300 baan kaga soo baxaya waa nolosha saas maanta dadkii dhiigooda loo miiranayo markaan iyo waxyaalahaas oo kale inay dadku shacabku ka kacaan bay ahayd oo ka hadlaan oo ka degilgishaan oo yiraahdaan sicir bararkan noloshan waxaan wada qaaliga noqday warniyahow arrinkaas in laga dheeriyo weeyaan arrinka dheeris buu baahan yahay dhiiggeeni basa warniyahow inta video ku xooga aan ku kulmi doono wax allaali wixii ray ama aad waxaad haysaan ama su'aalaad qabtaan commentiga igu soo qora anna waxaan iniga ballan qaadayaa waqtiyada qaarkood inaan say tahay iniga soo jawaabi doono oo walaalkiin Garweyne team Garweyne waxa leeyahay madaxaasaad ii saarantiin madaxdayda tiin irkaygeeya videogana sii share